dhalinyaradan percentage-kood ugu badan maal cadeeriyoon ayaan fasaqaa inaan jiro qof aaminays maanta wala daado xiriir wax malihi wax nolosh kamid oo normal ah waaye عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتو أنا ونفسي صاحب يالكسود وهذا برنامج كنا كاركا أنا واحد من ناري مهد الجرادة يو عقبة سو وجه يو مركي وجهنا وحبرشة يوم كشقتهم كأيهم بقى البرنامج كمان توحى مرتي نواه عنب عبد السلام علي أو كم هذا الجرادة الصوماليات نوصل لي برنامج كأن حكور هذا عن كورة يسنه عنب وكسود وينيا كسود وحكسان نيوز فور يوالك حسين جل هاجي oo barnaamijka daadiye ka ah maanta waa ka jazakallah khayr waan ku dhawahay barnaamijkan aad iyo aad noogu faraxsanahay inaan ka noqdo dadka ugu horeeyay barnaamijka ugu bilaabo soo kale inaan barsibid ama qayb ka noqdo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan bilaabo barnaamijkan aad iyo aad quruxda badan ee lagu dhiirigelinayo ama lagu baraarujinayo dhalinyarada Soomaaliyeed inta waxbarashada ku jirto iyo inta maanta shaqo doonka ah waana mahadsantahay waa ka xuseen jazakallah khayr ana sida caadiga ah dhalinyarada Soomaaliyeed laba marba caqabada ay wajahaan marka ay wax baranayaan iyo marka ay shaqo doonka yihiin intaba soo adiga waxaad ka mid tahay dhalinyarada Soomaaliyeed kuwooda ugu macquulsan ayadoo ardayad ah qof arday ah haddana arday kale wax barayo qof labadaas kulansaday ayaa tahay marka caqabada ugu waaweyn ee aad la kulantay inta barnaamijka maxaa ku yiraahdo ku gudi jirtay hal ila wada noo sheeg waa maasanta walaalkay hadii caqabad la dhaho caqabadaha iska fara badan yihiin qofka markuu hami ama ujeedo ama rabo inuu hadafka gaaro qasab waa wala kulma caqabada laakiin alxamdulillah waan soo gudbay caqabado saas u badan ma ahan ama weyn oo maanta oo saameyn gooni ugu yeelatay laakiin waxay ahayd hal ila hadii aan ka sheego xiligaas waxa ardayad ee ku jirta sanadka ugu dambeeyay jaamacadda ee dhameynayso semester 7kii markaas waxa galay maxaa la imtixaankiisa finalka iyo waxa kulmay ama bilaabayo barnaamijkii waxaan barnaamijkaas bilaabay 1 January 2021 bilaabay barnaamijkaas oo inaan ardayda wax soo gudbiyo ka horna ilaa iyo dabayaaqada 2020 camal barnaamijka agaasimay labada bishan waxa galay maadada امتحان قلي سديد مادني وقاعدناي مركع قبلي تاسع كوكا تمامنا وحدي كرا برنامج كامركا بلا waxay ahayd barnaamij ku saabsan first horta basic methodology iyo sidoo kale maadada accounting-ka waana laba maado oo macnaha basic ama gundigu ah waaye ardayda wax baranayso accounting-kan markay bilowga yihiin qof walba maadada fakalta goor waxa dhigto marka basic methodology-kan sidoo kale asna same ayuu leeyahay marka rabina soo bandhigo waxa jira social media kumanaan qof kugu soo xirmaayo ama video-ga oo gaarayo dadkaas waxa ku jira dad aqoon yahanay oo maadadii ku soo qalin jibiyeen oo maxaa la PhD holder ka wataan caqabadaha ugu weyn waxay ahayd saamicna sida ugu saxsan oo gudbin kartaa ilaa maanta wax arday kaliya isku agnaayeen waxa media la soo fadhiisanayay ahayd inaan wixii juhdi iyo dadaal badan aagiliyo alxamdulillah ugu dambeeyna waa soo guuleystay adigoo waliba arday ah oo maadadii yani ku dhex jiro barashada maadada kale dad kale si bartay صح exactly ها maadada waliba ku jiray barashada 6 bil qayb hore soo qaatay waxa idnad qayb dambe haddana waxa ka bilaabay hore alxamdulillah inta soo fahmay si arday Soomaaliyeed ugu dhiirigelishmaan qof walba buugis soo sameesto oo diyaarsado sasaaro inaa ka dabageeyo hatta ardayda markaas isku seemka aan ahay inay ku sii dhiirigelishmaan okay dhalinyarada qaar ee wadankeena waxa wadankii ma qabaasano oo yani niyad uma hayaan abateed weyn uma hayaan inay fursado ku sameystaan ayadoo haddana aan wadankeena 75% dhalinyaro waa la leeyahay marka ayagoo leh wadankii maxaa ku yiraahdo kuma kalsoonaan karna ama wax ma abuuran karna ama hatta fursad ma la shaqaan keen marka waxa jira dhalinyaro marka fikirkaas qabo oo yani wadankeena inuu fursad lahayn fikirkaas qabo marka saddex adiga ma la qabtaa mise waxa ugu doon tahay jira dadkaas والله أنا بحال 100% أكسر جدا مركب له أرنس أنا dhalinyarada inay soo wadanka sax waa weerta kumana percentage ugu dhalinyarada hamigooda ma ahan in wadanka wax ku qabsadaan maxay burburkii dagaalada iyo wixii saameyn weyn horta geysteen laakiin dalka yahay darin ku joog waaye waana arin macnaha sida saxda ah qabo amri ahaanteeda haddii maanta waa sax waaye 75% waana dhalinyaro haddana tayadana aad u yar hadda maanta dalalkan galbeedka dalalkii duqooda loo bixiyay waxa loo dhahay waxay tahay dadka waaweyn ku badan dhalinyaro aad u yar tahay marka soo ahayna tayadoodan haddana way fiican tahay anaki maanta inta dhalinyaro ahayn dhibaatooyinka ugu meesha soo gaaraysan waxa waa hami la'aanta irida la'aanta
rajada ugu badan dhalinyarada waxay ka qabaan haddii inta ay ka tagaan inay wax qabsan karaan laakiin haddii inta joogaan inay wax qabsan karin horta sax waaye dalka ama wadankeena caqabadiis waa iska badan yihiin laakiin wax laga baxsan karo waa dunida waxa caqabad leh ma jiro tusaale hadda wadamadan horumareen oo kale markay ardayda jaamacadaha soo dhameeyaan gaabka anaka aan galno in la mid ay galaan qofka daraasadee ku sameeyo oo dib u raac sameeyo fiiriyo way arkayaan waxaa jirto wiil ayaan dhaxaas oo media aad loogu soo faafiyey wiilkaas waxaa Pakistan oo dhashay jeclahay dalka Ingiriiska oo ku barbaaray oo waxan ku bartay grade dadku wuxuu ku jiro ugu fiicnaa ee ku baxay grade A plus ka loo yaqaano haddana sanado shaqo la'aan ahaa ilaa marka dambe oo media soo fadhiisto oo maxaa la jidadka fadhiisto ugu dambeyn oo shaqsiis ku helay marka adduunka iyo rafaadkaas islaacas ka jirta gaabka shaqo la'aanta waa jirta haddii aad qortid gaabka shaqo la'aanta English aad ku qortid wax ku soo baxay kumanaan dhalinyaro ha ahaato wadamadan horumareen ha ahaato Afrika ha ahaato Asia meel walba ka soo baxaan marka adduunka wax loogu baxsaa waxay tahay juhdi iyo dadaal dhalinyaradan percentage-kood ugu badan maal cadeeriyoon ayaan ka saaqaa amigooda aad u yar marka adiga marka waa ka soo horjeeda dhalinyaradaas qabo in wadanka yani fursado oo leh fursad la'aan aad ugu soo horjeeda okay sida arab anaga waxaa aragnaa inta badan adigoo ordaayo oo online business wado maxaa ku yidhaha accountant iyo researcher haayo marka su-aasha waa su-aal kaftala waxay ku leedahay sida anag xiriirka sidii isku yihiin haasawaha macnaha ma leedahay qof amoora waxa la wado ya marka su-aashaas bal ka waran maxaa dadka isweydiinaya macnaha qof ordaayo oo hadda macnaha qof maanta dhalinyaro cimrigan jiro qof aaminaysa maanta wada daadho xiriir wax ma lihi wax nolosha kamid oo normal ina waaye taasna inta u tagaa okay marka jawaabtooda waxa waaye dabcan way jiraan masha Allah okay ugu dambeyntii su-aashan waxay ku leedahay waxaa jiro annaga dhalinyarada wadankeena dhalinyarada aad ugu fara badan dad waxaa hadda inta badan hadda dhalinyarada waqtigii hore hadda xoogaa soo fiican yihiin qaar bajaaj ay wadaan qaar waxay inkastoo uu jiro lambarka shaqo la'aanta haddana waxaa jira dhalinyaro haddana dadaala oo hamile marka adigana waxaad ka mid tahay dhalinyarada dadka isxilqaamayaasha oo dhalinyarada Soomaaliyeed qof adoo arday aad wax faa'iideynaysa hadda marka by orally maxaa soo jeedinaa dhalinyarada Soomaaliyeed ma guriga jooga ama maxaa ku yiraahdaa amaba hadda yani talaabo qaadka ama iska jiifo maxaa ku dhiirigelin lahayd wallahi waxaa ku dhiirigelin lahaa ama aqdarsan lahaa qofka marka hore dhalinyaro yahay nolosha xilliga ugu fiican ama ugu quruxda badan waaye qof walba oo maxaa lahaa maanta saddex waxaa jirta marxaladood oo qofka bini'aadamka uu maro marxaladaha dhalinyaronimada marxaladaha duqowga iyo qofka intuu yar yahay caruurnimada qof walba caruur wuxuu u hamiyaa marka da'da dhalinyaronimada u hamiyaa qof walba maanta duqow ama oo age noqdan wuxuu asan u shalaayaa dhalinyaronimadiisa marka dhalinyarada inay fadhiga ka kacaan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay garab ka dhigtaan wax walba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala la kaashadaan la garabsadaan gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana anaka dad kusoo koraan kusoo barbaaray jiilkan horta alxamdulillah sida waalidiinteena soo mareen waa ka fiican dagaal ma arkin oo maanta oo zaa'id oo weyn ama dhibaatooyin oo xitaa maanta guryaha isku soo galas dhibaateena wax la soo mar wax inta maanta kusoo koobi karna maahan mowduuc kale weyn maqane waxas dhibaatooyinkaas ma aragno jaanisi waxaa haysanaa dadka maanta dunida ku nool haystaan oo kale haddii maanta fikrad qurux badan aali imaatid oo Ilaahay la kaashatid oo maanta soo bandhigid wax maanta ku soconaa waaye soo maanta dalkeena u balaarta alxamdulillah hamiyada dhalinyarada soo u badan tahay percentage ugu fiican shaqooyinka ay maanta haystaan hadda ani waxaa ahay dhalinyaro wadankeeda wax ku baratay wadanka ku dhashay ku barbaaro Muqdisho haddana maanta ka shaqo bilaabay maxaa la shaqadana shaqo yar waaye small business wala ka insha Allah mustaqbalka waa rajayna shaqo weyn noqoto oo qurux badan dhalinyarada badankood maanta isay ku shaqaystaan shaqadan hadda online ka media-han sahlay ama fududeeyay inaa wadamada meelo kala duwan xataa wax u dhiibi kartid Muqdisho gobolada meel walba meesha ay noqoto iyadana jaanisi kale waa qof walba maanta ay ku baraarujin lahaa fikrad bahaysid xataa wax gooni ma ka rabto maanta isdhiig kartid wax qarash badan oo ka rabaa waxa project la degtid oo bangi la tagtid oo bangiga xataa ma kaaga baahan bis dhiirigelin iyo naftaada aad support gareysid qof walba markaas ku support gareena xataa family haday noqoto marka waxaa ku dhiirigelin dhalinyarada Soomaaliyeed
inay juhdi iyo dadaal ku bixiyaan si ay uga samata bixi lahaayeen dhibaatooyinka waddanka ka jiro shaqo la'aan shaqo la'aanta sax way jirtaa okay waxaa hadda yani aad ka dhawaajisay small business inaad leedahay maxaan iibisa waxa horta waxaan dhinacan qurxinta dumarka oo kale labisadooda qayb kamid ah iibiyaa dhankan dumarka la weli joogaa marka waan rajeynaa insha Allah intaas kasii balaarato alxamdulillah alshukrillah hadda qiyaas gooni ma ka bixin kari laakiin anab ahaan maanta way kaafisay alxamdulillah shaqadaas aad iyo aad umahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa inaad naga aqbashid inaa barnaamijkan aad kugu casuulno oo nagala qayb qaadato intaas ayaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena gaarka ah xogsaan iyo xiiseeda gaarka ah tan iyo intaa kulmi doona intaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum